بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قدونك بارلمانك حلبانada baarlamaanka dhammaan martida kale ee sharafta leh xildhibaanada federaalka iyo kuwa stateka martida inala joogta camay ugu horeeyo waxaan idinku salaamayaa marka hore salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan rabaa inaan u mahadceliyo baarlamaanka dowladda Jubbaland ee baarlamaankii saddexaad doorashada ay sameeyeen iyo codayntu sida ay u dhacday waxaan mar labaad u mahadcelinayaa saaxiibada musharaxiintii garab fadhiyey oo iyaguna natiijadana aqbalay si fiican hawshaasi ay noogu socotay intaan markaan ka tago waxaan rabaa hadal kooban inaan idhaahdo Jubbaland waxay ka soo tagtay meel aad u fog Jubbaland waa deegaan Soomaali ay wada degan tahay wada leedahay Jubbaland waxay ku dhisan tahay dib u heshiisiin isu tanaasul iyo walaalnimo waxaan rabaa inaan taariikhda ka soo bilaabo 2013 markii ugu horeysay Jubbaland dhisay mucaarado badan iyo dhib badan baa jiray oo dhacay dib u heshiisiintii ugu horeysay ee Jubbaland laga qabto waxaa yimid dadkii markaas mucaaradka ahaa ee dib u heshiisiinta ku yimid ee qaatay Jubbaland oo ay leeyihiin inay dhistaan waxaa ugu horeeyay madaxweyne ku-xigeenka labaad Suldaan Cabdiqaadir Luga Dheere waxaa ku jiray gudoomiyaha baarlamaanka labaad gudoomiye ku-xigeenka Cabdi Baaley iyo mas'uuliyiin badan oo kale waxaa iyaguna qayb ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad Maxamuud Sayd Aadan oo ku yimid isagoo 6 gobol dadkii ka shaqeynayay ahaa dib u heshiisiinta gartayna Jubbaland iyo waxay tahay sida loo dhisay intaa wixii ka dambeeyay reer Jubbaland waxay ku jireen dib u heshiisiin iyo wax la wada leeyahay shalay baan idin sheegay Jubbaland inay ka duwan tahay steedyada kale oo ay tahay meesha miisaanka Soomaaliya laga fiirinayo waxaan rabaa inaan taariikhda wax yar dib ugu noqdo 2013 dawladii markaa uu madaxweynaha ka ahaa madaxweynaha maanta jooga Xasan Sheekh Maxamuud dagaal dheer oo dhiig badan ku daatay baa ka dhacday waxay noqotay dagaal kadib inaan gallo heshiiskii aad ogeydeen Addis Ababa Agreement oo qorayay qodobo markaa reer Jubbaland ay liqi waayeen oo ay ka mid ahayd Jubbaland lama yiraahdo Jubbaland oo ay ka mid ahayd waa kumeelgaan oo ay ka mid ahayd waa leader oo ay ka mid ahayd dekadiya garoonka 6 bilood in lagu wareejiyo waxaan u aqbalay danta dalka iyo reer Jubbaland inay u baahan yihiin inay helaan bayskii hore dhismaha dawladooda taasaan ku soo dhaafnay intii ka dambeysay waxay noqotay markaa inaan dhisno dawladnimada dagaalka shabaabka oo shalay ka hadlayay oo culayska ugu badan halkan uu yaallo oo madaxa masku uu yaallo ayaa waxay noqotay inaan dagaalkaad ogeydeen gallo iyadoo mar walba ay yaray taakulada dowladda federaalka aan ka helayno waxaa ku xigtay dowladdii farmaajo oo iyadana aan garanayna marxaladihii aan isla soo marray iyo mucaaradadii ay abuureen iyadoo maanta ay joogaan dadkii xilligaas mucaaradada ahaa dad ka mida wasiirada iyo xildhibaano federaalka oo wasiir Seeraar oo wasiirka waxbarashada xildhibaan xidig ay ahaayeen dadkii 2019 mar walbana waxa ayaan daraa dawladnimada Soomaaliya inay noqoto dawladnimo ka shaqeyso jiritaan la'aanta iyo dhisid la'aanta dawladnimada Soomaaliya taas waa uga mahadcelinayaa xildhibaanka iyo wasiirka iyo markay arkeen xaaladda taagan ayay waxay yiraahdeen godka lagu socdo kuma sii dhacayno waxaan rabaa inaan hal eray oo kale ku daro kafta baha ahaado Jubbaland waa Soomaaliya waa state ballaadhada Soomaaliya ku yaala Soomaali baa degan Etoobiyana ma aha Kenyana ma aha 2019 dawladdii jirtay waxay culayskooda dhan isugu geysay inay Etoobiya isticmaasho Jubbaland la qabsado say rabta ay ka yeesho
iyadoo ilaa hadda qaski uu dhinac way ka sii jiro maanta dowladda xasan sheekh wuxuu dib u xusuusinayaa 2013kii wixii dhacay iyadoo maanta ay taalo in la yidhaahdo axmed madoobe kenyaankaa keeni kenyaan baa sidan yeeli am not a Kenyan am Soomaali baan ahay waxa annaga Soomaalidii aan ku wada hadli weyno laa Itoobiya aanan aqoonin walaa Kenya aanan aqoonin walaa cid kale aanan aqoonin Soomaali baan ahay Soomaaliya iskale waxay maanta maraysaa waxaan odhanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud taariikhda dib ha u celin dadka reer Jubbaland way ka bogsadeen shalay waxay soo mareen wada hadal baan diyaaruna dawlado kale ha ku wareegi maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo raaskaamboon iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal Soomaaliyeed si 2013 shalay la isku laayo laakiin ma dhacayso Jubbaland waa Jubbaland maamul baa ka taliya maamulkaasa mas'uul ka ah lama aqbalayo ciidanka ahayn oo amniga faragelisa dhibaatana geysata shaqo kalena gashana lama aqbalayo haddaba madaxweynow waxaa nasiib darro ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra'iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo Jubbaland burburinteeda waa nasiib darro waxaan ku leeyahay ra'iisul wasaare xamsow waxaan waa taariikh berri bay qodi doontaa deegaan baad ka soo jeedaa dad baad matalaysaa inaad dagaal u xaydxaydato oo aad tiraahdo Jubbaland ma la dagaalamay burburinaya shalayna mayna dhicin maantana ma dhacayso kuwa adiga kaa waaweyn baa isku dayay kuwa kaa awood badan baa isku dayay dawladay ahaayeen kuwii fartii igu yeedhaya lahaa sidaa iyo sidaas laakiin waxaan ku faanayaa inaan weli Soomaali ahay mana dhacayso qof Soomaaliya intii loo yeedho inay cid kale intay u hajabto ay u dhigteed galayso ma dhacayso dib ha loogu noqdo wada hadal baan diyaar u nahay aan wada xaajoonno aan isu nimaadno laakiin ha laga daayo warwareegga lagu jiro cidda mucaarada cid wax sheegan kartaana halkan ma joogto madaxweyne kalena ma jiro anaa maanta madaxweyne ka amnigana ciidanka amniga gacanta u hay ciidan kalena ma jiro sidaa awgeed waan hadalkaygu waxaa laga yaabaa inuu kulayl ku jiro weli kama tegin Soomaalinimo waxaan dawlado ka diiday Soomaalinimaan ku ogola waxaan cid kale ka diiday Soomaalinimaan ku ogola warmii Soomaaliyeed aan ku wada hadalno waddankana horey buu rabaa inuu socdo dib ha u celin taariikhduna way qori doontaa haddii cid la isticmaalayana shalayna waa la ogaa waxaan ahay haddii amni laga hadlayna nin amni aan ahay waxaan aqaanaa ciidanka ugu muhiimsan oo ugu badan waxay la tahay arrintaas dib ha looga noqdo aad iyo aad baan dadka reer Jubbaland iyo martida ugu mahadcelinayaa waxaan idin leeyahay guul iyo gobonnimo waxaan isku ognahay shabaab oo la dagaalanno ciddii kale carqalad keentana gacan baan iskaga qabanayna salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato